وحي من القصص الجميل يشفى به القلب العليل. وحي سماوي هما وانساب مثل السلسبيل. وحي من القصص الجميل يشفى به القلب العليل. وحي سماوي هما وانساب مثل السلسبيل. وحي من القصص التي دلت على الله الجليل. قصص تجلت حبكة تالله ليس لها مثيل. تالله ليس لها مثيل. وحي من القصص الجميل يشفى به القلب العليل. وحي سماوي هما وانساب مثل السلسبيل. وانساب مثل السلسبيل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر دواذا ودروستي أنكو قاذنيني قصص في القرآن الكريم، وموسم كيلابات إيا قصة أفراد. قصة ما أنت أنسو قاذنينو وقصة ذو القرنين. ninkii la oranayay dulqarnayn qisadiisii baan soo qaadanaynaa. axibbatii fillaah, ilaahay subxaanahu wa tacaala ninkan uu ka waramay, wuxuu kaga waramay suuratu lkahf. wuxuu ahaa boqor wanaagsan oo cibaado badan ayuu ahaa. dhulka ilaahay adduunka oo dhan ayuu ku wareegi jiray si uu dacwada iyo diinta ilaahay uu u faafiyo oo dadka madluumiinta ugu nusreeyo, cadaaladda uu ugu dadaalo. ninkani sida qowlka raajixa ah nebi ma ahayn, rasuul ilaahay uu soo dirana ma ahayn, malagna ma ahayn. qowlka raajixa ah oo ibnu kathiir iyo hayruhu ay sheegeen inuu ahaa boqor caadila oo dacwada iyo diinta ilaahay u nusraynaya oo faafinaya ayuu ahaa. ibnu cabbaas radia allaahu canhuma waxa uu yidhi, kaana dulqarnayn waxa uu ahaa malikan saalixan, boqor wanaagsan ayuu ahaa. ilaahay ayaa camalkiisa raali ka noqday. wa athnaa calayhi fii kitaabih, ilaahay baa kitaabkiisa ku ammaanay dulqarnayn. ma ahayn sida dadka qaarkood ay yidhaahdaan, ay u maleeyaan inuu ahaa aliskandar almaqduuni. ninkaa ma ahayn. ninkii magaalada la yidhaahdo aliskandariya dhisay, aliskandar almaqduuni, ninkaa ma ahayn. sababta oo ah dulqarnayn wuxuu ahaa addoon ilaahay oo wanaagsan, oo mu'mina, oo boqora, oo dacwada faafiya ayuu ahaa. bal waxaa la yidhaahdaa carab ayuu ahaa. ninkan kalena wuxuu ahaa yuunaan, griiga ayuu ka soo jeeday. nin kaafira oo mushriga ayuu ahaa. xilligii uu jiray, wakhtigiisii, zamankiisii, waxa ay sheegayaan culummada sida al-asraqi iyo ibnu kathiir dimashqi, uu sheekh ibnu cuthaymiin radia allaahu canhu ama raximahullah isaguna uu sheegay, dulqarnayn waxa uu islaamay wakhtigii nebi ibraahim calayhi salaam. beydkii ilaahay ee kacbadana uu ku dawaafay, oo isaga iyo nebi ismaaciil iyo nebi ibraahim ayaa ku dawaafay. ninkaasi wanaagsan ee caadilka ah, boqorkaasi, ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala warkiisa ina siinaya.
inooga warramaya nebigay u yimaadeen gaaladii way weydiiyeen ahlu kitaab baa ku yidhi waad hubsanaysaan maxamed inuu yahay rasuul iyo in kale ninkaa warkiisa weydiiya nebiga sala allahu calayhi wasalam ayay weydiiyeen ilaahay waa ka warramayaa ilaahay waxau leeya wayas'aluunaka can dilqarnayn nebi allow dilqarnayn ayay ku weydiinayaan qul waxaad tidhaahdaa sa'atluu calaykum minhu dikraa ninkaa warkiisa waan inigu akhrii umaan joogin anigu warkiisa maan akhriyin war uma hayo laakiin waa la ii waxyoodaa waxyigaasi la ii waxyoodo ayaan inii sheegi weliba minhu badhkii ayaan inii warrami noloshiisa oo dhan inii warrami maayo sa'atluu calaykum minhu dikraa waxyi la ii waxyooday ayaan inigu warrami warkiisa inta u baahan in lagu cibro qaato lagu waana qaato inta ina xasuusinaysa cadaaladiisa iyo wanaaggiisa inta umaan inii warrami ku dhan nebi allow sidaasi ayaa nebiga sala allahu calayhi wasalam loogu waxyooday ninkan ilaahay waa ka warramaya waxa ilaahay uu yidhi innaa makkannaa lahu fi lard arladan ayaan makansiinay buu ilaahay yidhi arladan ayaan dejinnay waan makansiinay dan walba uu rabo farta ayaan ka saarnay wa aataynaahu min kulli shayin sababa shay walba wax walba sababtiisa iyo aqoontiisa iyo awooddiisaba waan siinay buu ilaahay leeyahay wax walba uu doonayo waan u fudaydinay wa aataynaahu min kulli shayin sababa waxaa la siiyey hub baa la siiyey ciidan baa la siiyey teknolojiya iyo wakhtigaasi wixii jiray oo dhan cilmigeyga wuu garanayay maal badan baa la siiyey dhaqaale badan ayuu haystaa dhulka sidii wax loo dhisayay ee cimraanka oo dhan ayuu garanayaa bal waxaa la siiyey shay walba cuntadaa la siiyey mataac adduunkaasuu wareegayaayo wuxuu ku wareegayay iyo sahaydiisii oo dhan ayaa la siiyey meel alla meeshuu doonayo uu tegi karayaa wa aataynaahu min kulli shayin sababa wuxuu ahaa daaci dadka ilaahay xagga ilaahay ugu yeedha ayuu ahaa wuxuu ahaa raxaala wareega oo adduunkaa ku wareega ayuu ahaa oo dadka khayrka ugu baaqa wuxuu ahaa boqor xoog badan oo ciidan badan haysta ayuu ahaa wuxuu ahaa caalim dacwadii iyo sinaacadii labadiiba wuu isku wadaa wuxuu ahaa hadafkiisu in calanka islaamka kor uu u qaado cadaaladda in dadka oo dhan ay cadaaladdu ay gaadho ayuu ahaa waxa uu yidhi oo saxiix ka ah mujaahid wuxuu yidhi adduunkan waxaa soo maamulay yacni boqoradu ama madaxweynayaashu waddamay maamulaan laakiin ma jiraa dad adduunka oo dhan maamulay haa way jiraan mujaahid waxau leeyahay 4 nin baa adduunka soo maamulay gebigiisa berigiisa iyo galbeedkiisa waqooyigiisa iyo koonfur inta oo dhan adduunka gebigiisa 4 nin ayaa soo maamulay 2 muslimiin bay ahaayeen 2na gaal ay ahaayeen kuwii muslimiinta ahaa waa nebi sulaymaan ibnu daawuud calayhi salaam iyo dulqarnayn labadaasi muslimiin ayay ahaayeen iyo nebi sulaymaan oo dee ahaa rasuulkii ilaahay adduunka way soo maamuleen 2na kaafiriin ayay ahaayeen bukhtunasir aan ka soo warannay iyo namruud ibnu kancaan labadaa nina gaalo ayay ahaayeen
adduunka oo dhan iyaka 4 nin ayaa soo maamulay. ninkani marka dulqarnayn nin wuxuu ahaa adduunka oo dhan maray, maamulay, quwad ilaahay uu siiyey, wax walba u baahan yahayna ilaahay uu u fudaydiyey. bal ibnu kathiir fi kitaabihi tafsiirka qur'aanka ah waxa uu ku sheegayaa akhbaar bani israa'iil in uu noolaa oy da'diisu ahayd 1600 oo sano ayuu noolaa oo adduunkan wareegaya arlada korkiis, waqooyi iyo koonfur bari iyo galbeed iyo adduunka oo dhan ayuu wareegayay. wa akhbaaru bani israa'iil wa israa'iiliyaadka laakiin xadithuu can bani israa'iil. ninkani khayrka iyo dacwadaasi ayuu waday. aayadaha qur'aanku waxay ka waramayaan 3 rixlo, 3 safar uu maray ayuu ilaahay inooga waramayaa. rixladii koobaad dhinaca iyo galbeed ayuu u baxay. galbeed buu gudaha u sii galay, wuu ku fogaaday. wuxuu meesha u ka arkay dad degan oo gaalo ah oo dad fiican aan ahayn. ilaahay ikhtiyaar ayuu siiyey inuu laayo, uu cadaabo, uu la dagaalamo iyo inuu diinta u bandhigo oo ma aragtaye uu si yaro dalaadalo oo degan wax ugu sheego. wuxuu doortay inuu dadkaasi wax u sheego, uu caqli celiyo oo muddo la joogo oo u sabro, oo taas ayuu doortay. ilaahay waa ka waramayaa ninkaasi. waxa ilaahay uu yidhi innaa makkannaa lahu fi lard, arladan ayaan makansiinay, waan dejinnay buu ilaahay yidhi. wax walbuu u baahan yahay gacanta ayaan ka gelinay. wa aataynaahu min kulli shayin sababa faatbaca sababa, waddo ayuu u maray, waddo ayuu u maray, cilmigeygii iyo xikmaddii iyo wixii oo dhan. safarkaa dheer buu galay. faatbaca sababa, isaga oo dacwada iyo diinta faafinaya. ilaahay waxau yidhi xataa idaa balaga maqriba ashamsi, markii uu u dhaqaaqay dhinaca iyo galbeed xagga cadceeddu ay ku dhacdo ayuu u dhaqaaqay. wuxuu yimid yaabiskii dhulkii ingeganaa meeshii ugu dambaysay ayuu yimid. waxaa ka dambeeya waa baddii weynayd, almuxiid, muxiidkii weeyaan, baddii weynayd. wax ka dambeeya oo wakhtigaasi jiray ma jiro. xaggaasi markuu isa soo taagay ayaa wajadahaa, waxa uu helay buu ilaahay leeyahay, taqrubu fii caynin xami'ah. waxay meeshaasi ku dhacaysay cadceeddu il dhooba ah, dhooba madow ah ayay ku dhacaysay. meesha markuu soo joogsaday waa dhul yaabisa, meeshii ugu dambaysay ee dhul yaabisa. meeshaasi xataa idaa balaga maqriba ashamsi wajadahaa, wuxuu helay, waa cadceeddii weeyaan, taqrubu fii caynin xami'ah. qofku markuu meel uu joogo ee baddii uu arkayo ee yaabis yarna uu ka horeeyo, uu u fiirsanaya cadceedda, waxaad moodaysaa inay biyahaasi ay ka daba dhacayso cadceeddu ayaad moodaysaa, sida adigu aad u arkaysid. meeshaasi ildhooba madowgaasi ayuu arkay iyada oo cadceeddu ka sii dhacayso. xaggaasay deganaayeen dadkani. dadkan markaa diintu u bandhigay. ibnu kathiir waxa uu leeyahay cadceedda ayuu arkay fii mandarihi, araggiisa isaga, taqrubu iyada oo dhacaysa fi lbaxri lmuxiid, baddaa weyn kusii dhacayso oo kale. waa qof walba oo meel saaxila jooga saas wuxuu arkaa. markaad badda u fiirsatid waxaad moodaysaa inay badda ku dhex dhacayso, sidaasoo kale ayuu arkay. meeshaasi waxa uu ka helay qoomkaas diin aan aqoon, ilaah aan aqoon, dad xuna
ووجد عندها قوم أيها لي حقاس ولو إلهامي ولقو إلهامي قلنا وحان كنري يا ذا القرنين ذو القرنين ضد كان أتمد إما أن تعذبهم وإما أن تتخذ فيهم حسنا إن العذاب تد ولد قال تد ودفقيسد ودعقابتد إيو إن تكسبرتد ودعوة إيا الدين تاسي أتقارسيسد قال وحا أيري ونقارسين دعوة إيا الدين تا لكن أما من ظلم فسوف نعذبه لكن كي ظلم لي مادة ظلم قديدنا قال لما لي مادة شرك لي مادة فسوف نعذبه كون عقابنا ولد قالمنا ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا كدبنا ربي أيا لعلني عذاب كي حقيقة أها نار جهنم أيا لقو عذابي وأما من آمن وعمل صالحا قفك إيمان لقهله يعمل صوبا فله جزاء الحسنى وناك يتشنو أيها ليه وسنقول له من أمرنا يسرا أرنك يغنى وان أفوض يديننا سوى نكسن بالولا دقمي لو أتكيني مايو دعوة سوء بلابي أو قوم كاسو أتغي أو دعوة ديبو غارسي أو كسبري أو أتكيستي أو دد ونكسن أيو كسو صاري تاسوا الرحلة دي سي أما دوفكي سي كوباد دوفكي سي لباد وحو دوفيا دنعا إيو kasoo horjeedka bari ayuu u dhoofayaa dhinaca iyo bariga waa xagga cadceedu ka soo baxdo ayuu safarka dheer ayuu soo galay laakiin waqti ayaa u dhaxeeyay meesha bari markii uu yimid wuxuu u yimid dad aan xadaaro lahayn aan ilbax ahayn aan waxba samaysan karin aan guryo lahayn cadceedda ay ka galaan xataa guryo ay cadceedda ay ka galaan ma haysan waxa la yiri dhulkooga jilicsanaa baa la yiri oo aad u jilicsanaa booro ma jirin meeshaasi geeda ma jirin dhulku saxraa ayuu yahay waa dhul aad iyo aad u dhib badan thumma ilaahay waxa uu inta kadib yani meesha iyo waqti baa u dhaxeeyay iyo meeshan kale dhoofkiisan labaad thumma atba'a sababa kadibna markaasuu raacay wadadaasi ayuu raacay xataa idaa balaga ilaa uu soo gaadhay matlica ashams meeshii qoraxdu ay ka soo baxaysay bari ayuu yimid wajadahaa waxa uu helay tatlucu iyadoo cadceeddii ku soo baxaysa calaa qowmin dad bay ku soo baxaysaa ummad lam najcal lahu min duunihaa sitraa meeshaasi ay degan yihiin sokadeeda wax cadceedda ka celiya ma haystaan guryo may samaysan hadh ma haystaan buuro ay ka galaan ma jiro geedo ay ka hoos galaani ma jiro cadceeddu marka ay soo baxdo meeshaasi cadceedda saani ugu dhacda dadkaasi ibnu jariir iyo khayruhu culammadu waxay yidhaahdeen guryo may lahayn geedo ay hadhsadaanna may lahayn ay cadceedda ka hoos galaan iyo kulaylka iyo meeshaasi wax buuro oo jira ma jirin maxaa culimada qaarkood waxa ay leeyihiin dhulkooga ayaan aad u jilicsanaa oo waxba aan laga dhisan karayn sida awgeed maxay samayn jireen badda ayay geli jireen maalinka oo dhan badday ku jirayeen badday muquuranayeen oo baddaasay ku jirayeen habeenkii bay soo bixi jireen cuntadoodu inta badan waxay ahayd kalluun ayay ahayd inta badan waxay cuni jireen kalluun ayuu ahaa maalinka oo dhan markuu cadceeddu ay soo baxdo badda ayay ka galaan oo baddaasay ku jiraan oo muquurta iyo xaggaasay ku jiraan mar alla markay cadceeddu dhacdo oo habeenku soo baxo iyakuna dibadda ayay u soo baxayeen xilligaasay waxay beeran karaan ay beeranayeen oo maaragtay wax qabsanayeen ayaa la yidhi meeshaasi ayay ku noolaayeen noloshoodu sidaasi ay ahaayeen dadkaasay ahaayeen aan xadaaro lahayn ilbaxnimo aan aqoon cadceedda wax ay
ka hoos galaan aan samaysan ee badowda ah ee saxraaga ku nooleen dhibta badan ayay ahaayeen. ilaahay waa ka warramayaa. ilaahay waxa uu leeyahay markii uu Dulqarnayn meesha uu yimid dadkaasi ayuu la kulmay. ilaahay waxa uu leeyahay waqad kadhalika waqad ahatna bima ladayhi khubra. wixii war oo dhan akhbaartiisa oo dhan waan ognahay, ciidankiisaan ognahay, warkiisa waan ognahay, wax alla wax naga qarsooni ma jira buu ilaahay leeyahay. meeshaasu kadibna nebigu ama Dulqarnayn ninkan saalixa ah boqorkan caadilka ah meeshaasu dacwadaasi uu dadka gaarsiiyey, uu faafiyey, uu wanaaga dadka u horkacay. kaasina waa dhoofkiisii labaad. dhoofkiisii saddexaad buu ilaahay ka warramayaa. dhoofkiisa saddexaad waxaa la yidhaahdaa dhinaca iyo waqooyiga ayuu u kacay. wuxuu u tegey dad aan hadalka aqoon, way hadlaan laakiin luqo kale, luqaad gaara ayay iska leeyihiin, waxba ma fahmaan. dadkaasuu u tegey. ilaahay baa ku tilmaamay laa yakaaduuna yafqahuuna qawla. hadal ma fahmayaan buu ilaahay yidhi. laakiin meeshan ay degan yihiin waa meel wala buuro ah, buuro badan ayaa laakiin waa dad aad u dibdhacsan oo waxbaba aan aqoon. hadalka xataa sida ay ku fahmaani uu yaraa. waxay ahaayeen dad la dulmiyey ayay ahaayeen, dhibaataysan ayay ahaayeen. waxay ahaayeen dad mar walba dagaal lagu soo qaado oo weerar lagu soo qaado Ya'juuj iyo Ma'juuj ayaa imanayay oo jaar ay yihiin oo daris ay yihiin. waa laba qabiilo, Ya'juuj iyo Ma'juuj mar baan ka warrami doonaa. waa laba qabiilo oo jaar yihiin ayaa dagaal ku soo qaada oo fasaadiyey oo xoolahooga qaata oo iyaga laaya oo dhib badan ayaa la gaarsiiyey. meeshan ay degan yihiin waa meel buuro waaweyn oo buuruhu madaxa iskula wada jiraan. meeshaasi ayuu yimid Dulqarnayn. ilaahay baa ka warramaya. uma intaa kadib, safarkaa kadib, safar kale waqti baa u dhaxeeyey. uma atbaca sababa, wadadaasuu sii qaaday buu ilaahay leeyahay. jidkaasi uu diintii iyo dacwada uu ku faafinayo ayuu qaaday. xataa idaa balaga bayna asaddayni, meeshaa markuu yimid buuruhu ay madaxa iskula wada jiraan, wajada min duunihimaa qowma. meeshaana qowm ayuu ka helay, dad ayuu ka helay. laa yakaaduuna yafqahuuna qawla, oo adag tahay sida ay wax ku fahmaan. waxa adag laa yakaaduuna yafqahuuna qawla, siday wax laysku fahansiiyo ayaa adag. laakiin markii dambe waa la isfahmay. ma turjumaan ba u keenteen, ma qacmaha laysku sida dadka dhagaha leh ayaa layskula hadlay. ilaahay waxa uu leeyahay qaaluu, waxa ay yidhaahdeen yaa Dulqarnayn, Dulqarnaynuna dhagayso. ina Ya'juuja wa Ma'juuj, Ya'juuj iyo Ma'juuj waa laba qabiil oo reer banu aadama, ilma nebi aadam bay yihiin. waa dad caadiya oo qisadooda mar kale aan ka warrami doono. Ya'juuj iyo Ma'juuj baan jaar la nahay. mufsiduuna fi lard, arlada ayay fasaadiyeen. waxbay dilayaan, waxbay cunayaan, waxbay baabi'inayaan, dhibaatay nagu hayaan. fahal najcalu laka kharjan cala an tajcala baynana wa baynahum saddaa. kharash ma ku siinaa, xoolo ma ku siinaa, hanti ma ku siinaa, raggaasi ma naga xidhi oo buurahaasi ay nagaga soo weerarka naga soo qaadayaan ma ku xidhi oo ma ku damini meesha. qaala waxa uu yidhi maa makannii fiihi rabbii khayr. war wuxuu ilaahay i siiyey ee nicmada ayaa aniga ii khayr badan oon ka jeclahay oo ii fiican. wax aan iniga doonayo ma jiro. bas fa aaciinuunii biquwa, waxaa iniga rabaa inaad i taageertaan oodii waxay la qabataan. ajcal baynakum wa baynahum radma, gidaar baan dhexdiina marin, gidaar aad iyo aad u adag, darbi xoog badan ayaan meeshaa ku xidhi ay dagaalka inigaga soo qaadayaan.
kadibna wuu bilaabay aatuni zubar alhadid kana buu yiri biro la jajabiyay biro yaryar ayuu yiri kana oo sidii garaa'idkii oo kala ah markaas labadii buurood dhaxdoodii ku shubay hatta ida saawa bayna sadafayn markii buurihii dhaxdoodii ayuu gaarsiiyo oo isku simay kadibna qaala anfukhu afuufa buu yiri oo dab ku shiday حتى إذا جعله النار مركو عديه ودب كدغي قال آتوني أفرق عليه قطرة كان بيقول نحاس بدبنا كشبي فما استطاعوا أن يظهروه ويكري واي مركه ماشا سو يأجوج يمأجوج أو كحري إن ماشا أي كسو طلابان أي كسو بودان أي كسو وريغان ويكري وايين وما استطاعوا له نقب إن الدلوليان أما هوستا أي كقضان ويكري وايين ماشا سو كحري وركو جيبه كذبنا وعدي بوسيي وانوسيي وعقل عليي تدريبي يحبوط السيدة وحاليسك عليي السيدة وحلو مارت مركاسا وحا كوري قال هذا رحمة من ربي تنوان حريس إلهي مركو أمرك ربي يماد قيامه يماد انت والله بابين يأجوج يمأجوج وين يوصل بحي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء إلهي وبابين وكان وعد ربي حقا بلنك إلهي وكي دبا وحان جري مايو ووقتير بس ووانيي وعقل عليي دينتي ببري صدحديسي دوف الرحلة وقالي حقاس أي كل ماتي أحبتي في الله قصدا وحان كفى إيدينا كو إن الأخذ بالأسباب أسبابت إلا قاتو إلهي وحولي إنا مكنا له في الأرض أرض أيان دجني وان مكان سيني وآتيناه من كل شيء سببا شيء والبنا سببتي سيبان سيني وحو كغاري وحو كهلي أيان سيني لكن انت كموجوك سيني فأتبع سبب ليمد إن سببت التي مادت أيان لو باهيه أسباب القوة ونبو إلهي سي سونا استثمرها وحيبو كشقيسيي وحيبو كعمل فلي سببتي أيو ليمد waxaad arkay dad aqli leh oo aqligooga aan ka faa'iideysanayn dad ilaahay maal uu siiyay oo la yastathmiruun aanan ku shaqaynayn dad ilaahay uu siiyay taaqa bashariya oo dad badan oo dadkaas iyo awlaad iyo wax badan la siiyo oo waxbaba aan ku qabsanayn oo waxba aan ku shaqaysanayn idan in asbaabta la yimaado waa daruuri qasada waxa kale oo ka faa'iideysanayna أجعل بينكم وبينهم ردما ماشا سو كحري يأجوج إيا مأجوج لباتدو دي مركي بدتي فساد كوغي مركي وبطي ماشا سو كحري علماء وحي لهذان وحان كفا إيدي سنينا دادك فساد كوغو وبدنيا هاي دادك شركة بدن ومدى فسادين إن حبسي الله سمايو الله وحرو حبسي كان الله وحرو دادك ماشا سي دادك الله وحرو inay sharci tahay oo banaan tahay ayaan ka faa'iideysanayna laano yaajuuj iyo maajuuj markuu fasaadkoogii u batay meeshaas uu sameeyay oo ku xiray sharkoogu kaga xiray in dadka sharkooga u bato ee umada fasaadinaya in laga xiro iyaduna waa arin aad iyo aad u fiican waxa kale oo ka faa'iideysanayna inayna fiicnayn marna waxa la yiraahdo ittikaaliya caajisnimo إن قفك لعسكتت من اتكل على غيره طال جوعه بعربته ترادا قفك قف اسكو هلايا اسقو مو حكسوغي gaajadaada badan isagu ma wax ka sugaysaa mar walba in markuu sida u yimid dulqarnayn waa kan dacwadoodii ba u sheegteen waxna la qabo oo sidana naho caynkan oo wax noo qabo oo wax noo dhiso caynkan waxbay qabsan karayeen laakiin caajisnimo ayaa haysay waxa kale oo ka faa'iideysanayna qofka daacigi waa in uu dadka maalkooga iyo hantidooda iyo waxa adduunay haystaan inuu qofku ka dhowrsoonaado weeyaan waa kan waxa uu ku leeyahay ma makanni fihi rabbi khayr
waxaa rabbigay isiiyey nicmad iyo khayr iyo kaasaa iga khayr badan aniga wixiina uma baahni in ummadda waxeega loo daayo. waxa kaloon ka faa'iidaysanaynaa meel walba uu tago cadaaladdaas ku dadaalay, waa boqor caadila ayuu ahaa. wax alla wixii asbaabtii la rabay oo dhanna uu la imanayay. axibbatii fillaah, waxa kaloon ka faa'iidaysanaynaa in dadka wax la baro. uu karayay inuu sagiyo ciidankiisu ay wax u sameeyaan, laakiin waxa uu doonayay inuu wax baro, inuu wax tusiyo ayuu doonayay. sida awgeed waa kan iyaka muu oran waxumaan la qaban, ana wax nii qabanaya muu oran, bay wuxuu ka shaqaysiinaya, shaqadu baraya. faaciinuuni biquwa, waa kan ay ila shaqeeya buu leeyahay. aatuuni zubar alxadiid, biraha la jajabiyey la gogooye keena. حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا أفوفا أو ددالا. قال آتوني أفرغ عليه قطر وكالشقيسين إياه. إن لقى الشقيسيو ضدك وحلبرو أو تدريب المهارات، تنمية المهارات. إن ضدك اللكبعيو أو وحلبرو وحقفوا كو أديك سدو أياك خير بدن إن حقبتت. قالي وعلمك الرماية وحنكبر السداد كاللونك aduu qabsatid. haddaan kalluunka kuu qabtoon afka kuu geliyo waxaan ka fiican inaan ku baro sidaad wax u qabsan lahayd. nabrina waa soo taagnaan, saha dambana waa soo taagnaan. inaan ku baro ayaa ka fiican. waxa kaloon ka faa'iidaysanayna waxa uu ku dadaalayay diinta iyo dacwada inuu faafiyo iyo wahdatul umma. ummaddu inay mid noqoto, isjeclaato, ay ma aragtay rabbigood ay gartaan oo diintooda ay gartaan oo waxa loo abuuray ay gartaan. qisadii dulqarnayn intaas ayay ku dhamaatay. waa inuu darsiga soo socda in sha allahu tacaala. wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh.